hayo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaad waxaan rabaa inaan kula wadaago xogtii wararka ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymo caawa ka socda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye ayaa caawa lagu soo waramayaa in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda Al-Shabaab halkaas oo ka socdo sidoo kale dagaalka caawa Afgooye ka socda waxaa qayb ka ah diyaaradda Akanji ayaa caawa halkaas duqeymo ka fulinaysay duqeymaha ayaa lagu soo waramayaa in kooxda dagaalyahanada degmada Afgooye soo weeraray lagu beegsaday sidoo kale caawa waxay duqeyn ka dhacday degmada Nuurdugle ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan meel 30 kiiloomitir u jira degmada Nuurdugle ayaa laga warhelay in dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaas isku soo urursanayeen tiradan dagaalyahanada caawa halkaas lagu duqeeyay ayaa lagu soo waramayaa in weerar dhabagal oo gaadma ay ku soo qaadaan ay rabeen fariisinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin degmada Nuurdugle guud ahaanba Shabeellaha Dhexe waxaa ka socda dagaalka dhinaca kooxda Al-Shabaab waxaana caawa abaabulka dhinaca kooxda Al-Shabaab ku socda degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe abaabulkan ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa imaanaya kadib markii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ay xoojiyeen weerarada gaadmada bishan Ramadaan ay ku soo qaadayaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe dhawaan ay yahay markii dagaalyahanada ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar gaadmaha ku soo qaadeen degmada Masaajid Al-Guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasoo kooxda Al-Shabaab u suuragelisay in gacan ku haynta degmada Masaajid Al-Guud ay gacanta ku dhigaan balse nasiib wanaag diyaaradaha dagaalka ayaa halkaas duqeymo ay ka fuleen kooxda Al-Shabaab kaga saareen kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaanahan xoojisay weerarada ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose in Al-Shabaab bishan ay xoojiso weerarada gaadmada ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolada dalka ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Al-Shabaab laga gaabiyay duqeymaha iyo dagaalka joogtada kooxda lagu hayay sidoo kale caawa waxaa lagu soo waramayaa saraakiil ay hogaaminayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha lugta gudoomiyaha maxkamadda gaanshaalla sare Xasan Cali Nuur Shoote ay caawa u ruqaansadeen dhanka degmada Nuurdugle halkaas oo kooxda Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay weerar ku soo qaadaan balse nasiib wanaag diyaaradaha duqeymaha ayaa halkaas duqeyn ay ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab waxay ugu dileen tiro dagaalyahano iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab tiradan dagaalyahanada iyo horjoogyaasha caawa gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Nuurdugle meel 30 kiiloomitir u jirta lagu duqeeyay ayaa imaanaysa kadib markii laga weeraray in dagaalyahanada halkaas ay damacsanaayeen inay weerar ku soo qaadaan degmada Nuurdugle Al-Shabaab dhawaan ayaa laga saaray sidoo kale Al-Shabaab waxa dhawaan laga saaray degmada Masaajid Al-Guud balse Al-Shabaab ayaa u muuqata inay ka samri la'aday degmooyinka Nuurdugle iyo Masaajid Al-Guud sida la rumaysan yahay Al-Shabaab degmada Masaajid Al-Guud iyo degmada Nuurdugle ayaa u hafreysan ay ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe dhawaan ayay ahayd markii horjoogaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu duqeeyay gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jirib haddii intaan la soo gaarto waxaan ka codsanayaa subscribe channelka like na saartiin share gareysid si aan u helno saaxiibo adigoo kale oo wanaagsan aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawaada saaxiibayaal mar kale